السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد السلام أغيرت كلجين وإذن سلامي سومالي إيميل كستا جوجتان waxaan halkan u soo galay videogii labaad. waxaan ka hadlayaa waxa waaye dhibka haysta raxaweyn digil iyo mirifle. waa loo jeedaa gobolada kale siday u nidaamsan yihiin nidaamkooda ciidamadoodii iyo maamulkooda habka uu socdo. waxa baaba'san oo dhulka yaalo zero waxa waaye raxaweyn digil iyo mirifle oo lagu kortumanayo Shariif Xasan Sheekh Aadan ku kortumanayo maamul aan jirin oo meesha ka socdo ay ku baaba'san yihiin dadka tacliin malaha waxbarasho dhaqaale malaha horukac malaha iyo difaacba malaha. waxa weeye dantiisa qaaska ayuu fiirsanaya. ummadii waata abaarta ku dhacday oo xoolihii ka dhamaaday ay xamar ku qulquleen oo ay ku tuugsanayaan. loo jeeda shabeelladoos wax ka socda waa loo jeeda. dadkii beeraha lahaa beerahooda ayagoo u jeeda inaysan tegi karin oo qori leela hor taagan yahay. qaar la dilay bariire beerihii dhammaan la aruursaday oo xoog lagu haysto. dadkii beeraha lahaa qaar macal ilmahooda la dilay oo meesha lagu duugay aan warba laga haynin. marka adduunyada waxa u foolxun waxa waa nin walaalkaaga qori ha kuu soo qaato ha ku gumaysto. ana kulle waxaan nahay tol baan nahay kulle oo aad afkii ku wada hadashaan oo isku diin tihiin oo isku jinsiyad tihiin oo isku color ama midab tihiin oo haddana gumaystii wuxuu ku sameeyey Soomaali ka daran ka foolxun oo ku sameeyey biyihii webigoo la iibiyey. adduunyada ma ka dhicin meel biyo webi la iibiyey. beerihii dadka laga dhacay oo beerahoodii xoolahoodii ay u jeedaan oo aysan ka hadli karin hadday ka hadlaan xabad taqaan oo aan laga hadlaynin ilaa hadda Shariifka aysan ka hadlin. ciidan u dhisan digil iyo mirifle aysan jirin uusan ogoleen ciidan inuu dhiso. sababta waxa waaye asaga far lagu hagayaa far loogu tilmaamaya wuxuu sameyn lahaa. waa nin asaga la haysta muxuu dal xureynaya muxuu dawlad dhisaya muxuu qaban karaa. marka aniga waxaan leeyahay had iyo dan ummadda raxaweyn dibadda jirto gudaha ku jirto waa inay isqabsadaan RRAdii soo celiyaan nin sidii shaar guduuda la soo doorto oo tolka wax u qabta. Shariif Xasan wax u haya mala dawladda federaalka iyo international community waxaan ka dalbanaynaa in aftina laga qaado. aftida wadanka gudihiisa oo in Shariifka uu madax ka yahay in kale banaanka raxaweynta joogta afti laga qaado. ma ogolin ninkaasi wuxuu ku soo galay dareeshadu ka soo galay lacag been uu dhiibtay oo dad laaluushay dartiis asaa keensaday baarlamaanka meesha u fadhi meel kasto gudoomiye fadhiyana asaa keensaday. marka waxaan leenahay ma ogolin arrimaha oo ku socda Shariif Xasan Sheekh Aadan. mana noo aha madaxweyne mana noo aha hogaamiye. waxaan dooranaynaa annaga nin mutacallim oo high degree wata bachelor ma aha high degree professor or master degree way ka buuxaan tolka mutacallimiina. baarlamaanka lafteeda dad mutacallimiina inaan keenno. international community waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka u sheegaynaa igad waxaan u sheegaynaa ninkaasi ma ogolin annaga Shariif Xasan Sheekh Aadan ma ogolin. mana noo aha hogaamiye noo ma aha. qofkii doortay oo meesha dhigtayna ayagaa yaqaano. raxaweyn dhan way isku qabtaa waana weydiin kartaan aftina waad ka qaadi kartaan haddii loo baahan yahay. diyaaraan u nahay afti inaan bixinno inaan ogoleen ninkaas.
waddanka waxa burburiya isaga waaye waddanka waxa dhulku gelinay waa isaga waddanka waxa lu gooynay waa ka hadda shirqool dawladii federaalka raba inuu shirqool u dhigo waa nin caadi qaata waa nin gumeysi kalkala waa nin damacsan waddanka inuu iibsado marka annaga haddaan nahay digil imirefle ninkaasi haddaba nama مثلا leenahay magacayna inuu ku shaqaysto ma ogolin dawladda federaalka madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan khayre prime ministerka iyo gudoomiyaasha baarlamaanka iyo xildhibaanada baarlamaanka waxaan idin sheegaynaa ninkaasi annaga haddaan nahay koonfur galbeed mas'uul naga ma ahan mas'uul buuxa ma naga aha waxa way halaga qaado dadka afti halaga qaado hadda rabtiin xaqiiqada inaad ogaataan intaasaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu